الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، يقول الحق تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. مؤمنين ترجع يقوى الضمركة قاركود قارك كلا وحي أيهن أولياء أيهن. حلقة وضع أولياء ده وكلمة الولاية معناها ذؤوية بمعنى وإسحقان وإسشعليهن وإسوهي الليان وإسقرب استاقان. معاني دا صورا بالغة وضع أو بعضهم أولياء بعض. إسلامكم إنتو صن إيمانين ونبي محمد صلوات ربي وسلام عليه أن الصادر جاهلية ده يقالدو هيلدا يوحسو تركا waxay ku dhisi jireen ama nasabka ama deegaanka ama dabaqada dana ka dhaxeeyay. qabiilahaan baa la isugu hilin jiray oo qaacidadoodu waxay ahayd unsur akhaaka zaliman aw madluman. yani waxay ka wadaan walaalka nasabka. deegaan ahaan baa la isugu hilin jiray oo la isku garab istaagi jiray. markii ilaahay nabi maxamed soo diray salawaatu rabbi wa salaamu calayh oo quraanka la soo dejiyay, xadhigii dadka isku xidhayay waa laga bedelay. mabaadi'daas oo dhan meesha waa laga saaray. waxaa laga dhigay mabda' isku kiin xidhaayay waa iimaan iyo islaamnimo waaye. sidaas daraaddeed buu rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay dadka mu'miniinta rag iyo dumarba ayagaa isxiga, ayagaa xaq isu leh inay isu hiiliyaan, isgarab istaagaan, isxoojiyaan. ayagaa isxiga. sidoo kale rabbigeen tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu ku tilmaamayaa oo ku sheegayaa weligiinnu waa alle iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta salaada tukanaya, zakadana bixinaya, ilaahay dartiina u rukuucsan. kuwaasaa weligiinno xigtadiinna ah, iyagaa idin xigoo dadkiinna iyo ehelkiinna ah. ciddii ilaahay ka weli yeelata, rasuulkiisa ka weli yeelata, dadka mu'miniinta ka weli yeelata, kuwaasi waa xisbigii alla weeye. xisbiga alle ayaana guulaysanaya buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala. xisbullah waa dadka mabda' iimaanku isku xidhay baa xisbullaahi ah. wixii mabda'a khilaafsan oo afkaar kale iyo mabaadi' kale uu isku xidhay oo gaalnimo ana waa xisbu shaytaan. labadaa xisbi baana rabbi qur-aanku ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala: ulaa'ika xisbullah alaa ina xisba allahi hum lmuflixuun. ulaa'ika xisbu shaytaan alaa ina xisba ashaytaani hum lkhaasiruun. xisbaan xisbiga asaaskiisu muxuu yahay? asaaskiisu wax weeye iimaan iyo camal saalix. dhalasho ma aha, deegaanna ma aha, midabna ma aha, masaalixna ma aha, dana kaleetana ma aha. xubin waxaa lagaga noqdaa mabda'a iimaanka iyo caqiidada saxda. waxaa ka dhalanaya in aad dadkaasi kula walaalaha ee kula mabda'a ee kula caqiidada ah inaad la qadiyad noqoto, ayaga xanuunkooda la xanuunsato, faraxooda la faraxdo, u hiilisood garab istaagto, qayb aad ka noqoto. meel alla meeshay toogaan ha joogeen, ha tageen, ha joogeen, laanna qayb ka midaad. sawir aad u qiimo badan buu nabigeennu ka bixiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka uu yidhi mu'minku mu'minka kale wuxuu u yahay dhistoo kale, qaybba qaybta kaleeta ayay xoojinaysaa. markaasuu nebigu farihiisa isdhexgeliyey sal alla alay wasalam siday farahaasi isugu dhex jiraan oo kale.
dhistuna ay saa isu haysato isu xoojinayso saasoo kaleetaba mu'minka kale u garab istaagaya oo u xoojinaya oo uu ugu noqonaya garab iyo awood ugu noqonaya misaal ka cajab badan buu nabigu bixiyay salawaatu rabbi wa salaamu calayh dadka mu'miniinta sifadood iyo tilmaantoodu buu nabigu sallallahu alayhi wasallam yihiin mu'miniinta reebel ma jinsi hebelna ma wadan hebelna ma midab hebelna ma mu'miniinta sifadoodu wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam isjacaylkooda isu naxariisashadooda isu turidooda misaal markii leeyahay laga bixiyo tusaalaha laga bixiyo waxay la mid yihiin nabiga sallallahu alayhi wasallam sidii hal jid oo kale hal ruux jidkii oo kale jidkaasi maxaa lagu yaqaanaa wajhu shabah xagee way waxay isaga mid yihiin oo isaga misaalinaya jidka aadamuhu hadii qayb kamida uu xanuunsado qandhado qaybta kale xumada iyo xanuunka iyo qandhada waa la wadaagaysaa kadalika mu'minku walaalihiisa kale adduunka meelay ka joogaanba qandhada haysa waa la qandhanaya xanuunka waa la xanuunsanaya murugtooda waa la murgaya dhibka haysta waa ka danqanaya waa xanuunsanaya macnahaas nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamu calayh laakiin waa goolma dareenka goormaad qaadaysa waa marka qalbigaaga iimaan xaqiiqi uu ku jiro waa qiyaas lagu garto iimaanka iyo inta uu gaarsiisan yahay haddaad dareen laawo tahay oo dhibaatada walaalaha haysa aadan kaba danqanaynin daliil waxay u tahay ama iimaankaagu inuu tabar daran yahay ama aadan iimaanba lahayn laakiin hadduu iimaan qalbigaaga ku jiro saxsan yahay kolba qiyaasta uu yahay iyo qadarka uu yahay ayaa xanuunkaagu noqonaya iyo dareenka aad dareemayso qadaayaadka walaalaha iyo dhibaatooyinka haysta معناها سوى معناها حديث كلا النبي كتل من صلوات ربي والسلام على حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وارضاه أحمد يغير كيسو صارين والنبي يقول صلى الله عليه وسلم مؤمنكو ضدك كلا أهل الإيمان كا مرك الله في ريو وحو أتشوغا ماشا مضحو تشيرك انتي سكلا أتشوغ تشيرك واحن صدا sida nabarka madaxa ku yaala jidhku waa la xanuunsadaa mu'minkuna walaalihii dhibaatooyinka haysta waa la xanuunsadaa buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu calayh oo waa ka danqadaa way xanuunjisaa waa dareemaa waa nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu calayh alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha ma aha falsafad ma هذا الودادنا معها ونبي محمد هذا الكيس صلوات ربي وسلامه عليه مؤمن كواحن صدا ولا ليه دباتوين كهستنا واللحن صدا والنبي يقول صلوات ربي وسلامه عليه وانا فعلا نبي قال نسدو اهانشري صلوات ربي وسلامه عليه سيده حديث بدن كتمت وحكم اذا تصاليات عجبت عملي قال النبي قال صلوات ربي وسلامه عليه كما في صحيح مسلم مال المالمها كم اذا ايا وحا يمد dad reebaadiye oo ka dhashay qabiilka mudar oo ay baahi aad u fara badan ka muuqato kabala'aan ah qaawan oo aradan rafaad aad u badan oo ka muuqda ayaa magaalada Madiina nabiga ugu yimi sallallahu alayhi wasallam markuu nabigu arkay dadka iyo dhibka haysta iyo aradnaanta iyo kabala'aanta iyo gaajada iyo faqriga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wajhi nabigu waa isbedelay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi نبي محمد مركو درين قادو قلبي سو درين قادو وجهي سالغا غران جيري مرغتي يا حنونكي قلبي سغلاي با وجهي سو اسلا بدلي صلوات ربي وسلام عليه markaasuu gurigiisa galay bal inuu xun ka soo helo waa soo baxay nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasuu muslimiintii isugu yeeray aadaan salaadii la tukaday dadkii buu u bandhigay war walaalihiin caawiya nin walba wuxuu heli karay saxaabadu ridwaanullaahi calayhim markii arintii ka jawaabeen oo ay si aad u qurux badan uga qayb qaateen oo baahidii dadkan haysay ay gacan ka geysteen oo raashin iyo dhar iyo wax walba ay soo tubeen wuxuu leeyahay saxaabigu waxaan arkay nabiga salawaatu rabbi wa salaamu calayhi oo wajigiisu dhalaalayo ودوراhayo wajiga nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaad moodaa buu gabal dahab ah sida uu u dhalaalayo wajiga nabiga sallallahu rabbi wa sallam alayhi u fiirso markuu faqriga iyo faaqada iyo dhibka dadka ka muuqda uu arkayna nabiga wajigiisu waa isbedelay
markii dhibaatadii la qaaday oo dhibaatadii meesha ka baxdayna nabigu wajigiisu farxadii qalbigiisa gashay ayuu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wajigiisii la dhalaalay dayasha inoogu sugan nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi mar kale ahayd kama fi sahih al-bukhari wa muslim nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxa uu yimid qabiil kamida qabaa'ishi carbeed waxay ku yiraahdeen dad lagu dar dad diintana barawaan islaamnay 70 nin oo saxaabadiisii ah oo ragii quraanka yaqaanay xulka ahaa ayuu nabigu ku daray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maray dhexda ku sii jiraan oo wada socdaan ayay ballantii uga baxeen 70 ninba hal meel bay dhigeen wallahi warkii baa nabiga soo gaaray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu u murgay nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi si waligii uusan u murgin Anas ibn Malik baa tilmaamaya murug uusan waligii murgin buu nabigu murgay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markaasuu bil kaamil aqoonudayay oo uu habaarayay nimankii saxaabadiisa laayay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi marka waa murgaya markay dhib jiro wajigiisu waa isbedalaya markuu arko wanaag arko muslimiinta waa farxaya sidaasuu nabigeenu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi innagana waxaa laga rabaa in dareenkaasi aad qabto dadka walaalaha meel walba muslimiintu ku dhiban yihiin dhibkooda inuu dareenkooda aad qabtaa la rabaa haddii kaleeto iimaankaaga ayaa u baahan inaad dib ugu noqoto calama su'aal baa saaran yaa imma inuu naaqis yahay yaa inuu cadam yahoon jirinba inaad ku faraxdo iska badaa inaad ku faraxdo iska badaa maanta walaalayaal marxalada aan marayno zaman waxaan maraynaa aad u dhib badan oo nabigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ka sii warramay oo acdaadii ilaahay tabaaraka wa tacaala mu'miniintii ay isugu tageen isu gaashoon buursadeen meel walba xuquuqdoodii iyo dhiiggoodii iyo hantidoodii la bannaystay dhinac kastood fiirisaa dabbaa ka holcaya deegaamadii muslimiinta gudahoodii dabbaa ka holcaya ayagii baa laysku diro qoorta laysu geliyey dowladahoodii baa laysku salliday shucuubtoodii baa laysku salliday qabaa'ishoodii baa laysku salliday waa la kala fogeeyey bannaankana in la gumaadoo la baabi'iyo taxta daraa'ic mukhtalifa wuxuu loo sababsado mar la yidhaahdo waa argagixiso oo lagu garaaco sawaariikh iyo madaafiic aan waxba reebaynin lagu baabi'iyo iyo mar la yidhaahdo xaqdarray dalka ku joogaanay ha la gumaado ha la baabi'iyo daraa'ic iyo asbaab kala gedisan baa loo samaysanayaa kadibna waxba loo hambayn maayo bal u fiirsa waxa Filistiin ka jira على مرأى ومسمع عالم كردن وداونيا أيا جنتالو عالميا أي نهان وحرام أيا لغو قراعيا والدمر يعرور ومساكين مسجد كي صدحات أيا يهود كعياريسا بل حفريات يقوديتان بيهوستي سكوضا si ay u istaajiyaan waxa ay ku magacaamaan haykalu Sulaymaan masjidkana u dumiyaan waa mas'ala maraaxil marayso oo xaaladad kala dambeeyo marayso ninkii yiraahdo war mayana waa argagixiso waa in laga takhaluso walu fiirso waxa ka jira Suuriya krishtankii ruushde reer galbeedde iyo raafidadii iyo shiicadii iyo Iiraan baa waxay isu kaalmaysteen muslimiinta sunniga in la cirib tiro oo la baabi'iyo quwado xataa weligood aan masaalixi dhexmarin oo dana dhexmarin baa waxay isugu imaanayaan markay arrintu ku saabsan tahay muslimiinta iyo dhiigooda khaasatan muslimiinta sunniga balufiisa waxa boormo ka socda iyo buudiyadu waxay ku samaynaysaa walaalaheen muxuu ah rohingaha حالو لينيا وحبي قرحيين وحبي ديلين ديك بيداديين لا إني مسلمين كليه أيام بوذيدو أما مذهب كان يدين تن بوذيدو أي دوني سائين أعرب ترتو والديقان كودي يضل كودا أي كوقاتا وعلى ركتين
iyo suwarka la soo dhigayo social media ee la yaab kale oo isleedahay war dadkani bini aadanba ma aha miya caruurta iyo dumarka iyo waayeelka sida loo galayo naxariis ma leh barina waxa lagu leeyahay muslimiinta naxariis lahayn gaalada naxariis wayna hada waxa su'aal isweydiin leh oo inaan isweydiino mudan aaway ururadii dawliga ah aaway UN aaway munadamaadkii dawliga ah aaway dadkii wax yar markay meel ka dhacaan qayli jiray oo kici jiray oo madaafiicda kicin jiray oo ciidamada diri jiray oo cir iyo dhulba weerari jiray aaway naam jawaabtu way fududahay kiiska iyo qadiyada waxay khusaysaa muslimiin marka dayaarada iyo dabaabada iyo sawaariikh iyo gantaalo la kicinayana waa markii kiisku uu kirishtan khuseeyo way xaqiiqadu taas iyada way الكيل بمكيالين habar cajuusad ah oo reer galbeed ah meel hadii wax lagu yeelay adduunka dhan waa kacaya qaylada iyo buuqa iyo qajjacda laakiin wax weey shacbi kaamilihi hadii la baabi'iyo marmarka qaar kood baad waxaad maqlaysaa hadal iyo idaana iyo eedayn iyo leesh laana kiiska muslimiin khuseeya inaan fahanno waaqica iyo wadcigu sidoo wax u jira waa laga maarmaan xaqaa'iqdana inay inoo cadahay waa laga tabari meelayna dhigto meesheeda waay laakiin inaan la khidaacin oo nala khaldin waa laga maarmaan waajib ala kulli muslim inuu tijaaha walaalihi qadaayaadka muslimiinta inuu dareenkeeda lahaado waa laga maarmaan sida marka kadibna wixii uu kari kara inuu qabto maxaad qaban kartaa waxa ugu yar dareenka qalbiga la wadaag xanuunso وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان waxaan la yaabay way soo carareen doomay ku soo carareen dil iyo baaba bay ka soo qaxeen doomo bidaa'i ah oo shiraac ah bay badweyntaad aragta ku soo mareen maaliishiya yimaadeen xuduudda laga xidhay badii baa dib loogu celiyay waa dal muslim ah indunuusiya yimaadeen ayagoo qax ah xuduudii baa laga xidho markaas dib loo masaafuriyo badda dib loogu sayray وهذا المسلم دولته مسلمين تجودهودي با اسكو مشغول سن مدن ريح يتن ريح يا وحبا ايغا مقن مدحدودي ترف باي كبخيلاي واحد مدكليه ان يقانان سيده شعوبتودا حبسيده لوغو غوري لو عداديو غالادنا لوغو ترتمو جعيلكودا سيدي لو كسبن لهايو لو غاري لها احميقيده reer galbeedka ka tali sidii ay u kasban lahaayeen ba tartan loogu jira oo xoolaha lagu bixinaya midba midka kale uga dhawaan laha xaalada noocaas oo kala waa dadkii muslimiinta matalayay waay xanuun aad u farabadan waay arin aad looga xanuunsado way sidaas daraadeed dareenkeeda inaad qabto dadka walaalaha ee dhiban meelay ku dhiban yihiin ba waa laga maarmaan xanuunkaas inuu ku hayo hadii qalbigaaga iimaan ku jiro waay xanuunka kadibna ha ku gaabsanina waxaad qaban karto qabo wax ka yarna ma jiro inaynu qabanno inaynu u ducayno oo aad salaada ugu ducayso oo aad kaliga u ducayso oo si jamaaci loogu duceeyo oo muslimiinta in dibka ilaahay maanta ka qaado iskaashigan buudiyadii hunduuskii nasaaradii yahuudii kulli ay isugu tageen oo meel walba qadaayaadkoodu ku dulman yihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala ma uusan dulminin laakiin waxaynu ogaanaynaa innaga ayaa halkaa isdhignay sababta inteeda badanna innaga inaga socota waxayna ka timid markaan ilaahay diinkiisa iyo mastarkii xooggiyo quwada ka tagnay oon ka jeedsanay oon kala googo'nay oon qabyaalad door bidnay oon wadaniyo door bidnay oo aan isqaybinay oo aan nasab wax ku salaynay oo ay soo baxday qowmiyaad bedelkii islaamkii mudaynaya muslimiinta markaasaa ilaahay sunankiisa wuxuu noqday horayna u socday haddana jira iimaanna doono sunan aan cidna muxaabaad u samaynin waay ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu ina dulleeyo way marka dulligana la qaadi maayo waa ka sii daraya waa sii adkaanaysaa ilaa ummadani ay garawsato meeshay ka khaldantay
iyo meesha laga gaaray oo ah ilaahay diinkiisii inay ka fogaatay kitaabkiisii qawaaniin bay ku bedelatay reer galbeed dejiyay ayay maxkamadaha dhigteen markaasay ilaahay kitaabkiisii iyo sunnadii nebi maxamed meesha iska dhigeen gaalay u kala tartamayaan oo ninka kaleeto uu doonayaa inuu uga dhowaado ilaahay kitaabkiisii quraanka ahana meel buu saaray qadiyada iyada ah heerka markay gaadhay muslimiinta iyagina isku mashquuleen gaaladiina ay qaabka ciisiga iyo karaamada iyo weynaynta u sameeyeen walaalahoodna ay fududaysteen dhiigii dhexdoodina si fudud ay u daadinayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku saliday cadow shisheeye abuu ku saliday waana sunno ilaahay tabaaraka wa tacaala si kastoy tahayba qadaayaadka muslimiinta iyo meel walbo dhibkoodu ka jiro ama maxalli ha noqdo ama caalami ha noqdo waa inay ku xanuujiso wixii tabartaada ana waa inaad ka qayb qaadato waajibka ina saaran ka isaga awey صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا اللهم ارفع ما بالمسلمين من الفتن يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح ذات بينهم اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم اهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور اللهم ادفع عن المسلمين الأعداء اللهم ادفع عن المسلمين الأعداء وانصر عبادك المضطهدين في كل مكان اللهم انصر عبادك المضطهدين في كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلهم من لدنك عونا ونصيرا يا أرحم الراحمين اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين وعليك بأعداء الدين اللهم عليك بأعداء الدين يا أرحم الراحمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاتهم يا حي يا قيوم اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاتهم يا حي يا قيوم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة